Waxaa si rasmi ah loo soo saaray waqtiga la ciyaari doono iyo sida loo kala ciyaari doono tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ee sanadkan lagu qaban doono caasimadda dalkeena Soomaaliya. Sanadkan tartanka degmooyinka gobolka Banaadir waxaa ka qayb gali doona dhammaan 20 degmo ee gobolka Banaadir ee sanadkan qayb ka noqon doona, sidoo kale degmada Balcad oo lagu soo martiqaaday tartankan ayaa la ciyaari doonaa 8 bisha 9aad 2024 maalin Axad ah. Waxaa wada ciyaari doona kooxda koobka difaacanaysa ee Gubadley iyo sidoo kale Hiilwaa ayaa wada ciyaari doona. Waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka Injineer Yarisow, waana gruupka A ayaa bilaabi doona 9 galabnimo ayay ciyaari doonaan, laakiin waxaa ka horeyn doonto ciyaar markaasi labaad Isniinta ayaa ciyaar kale oo aad u xiiso badan 9 bisha 9aad 2024 laba kulan ayaa la ciyaari doonaa Axadda markii la furo oo keliya. Warta Nabadda iyo Daarusalaam ayaa markaasi lagu daafuri doonaa. Injineer Yarisow ayaa lagu ciyaari doonaa isla Isniintii 9 Kaaraan iyo sidoo kale Hodan ayaa ciyaari doona. Dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir sidaas ayay u ciyaari doonaan. Waxaa lagu ciyaari doonaa garoomada Injineer Yarisow iyo sidoo kale garoonka Jaamacadaha ee degmada Hodan. Labadaas garoon ayaana loo qorsheeyay. Maalin walba waxaa la ciyaari doonaa 2 kulan marka laga reebo maalinta Axadda. Sidoo kale tartankan intuu socdo waxaa la ciyaari doonaa Axad, Isniin iyo Talaado iyo Arbaco iyo Khamiis iyo Jimco, Sabti, Axad, dhammaan toddobaadkan oo idil bishan aan ku guda jirno maanta 1 ay tahay waa la ciyaari doonaa oo markaa si wanaagsan ayay u socon doonaan. 8 bisha ayuuna tartankan bilaaban doonaa, waxaana ka dhiman 7 maalin oo qura. Degmooyinka gobolka Banaadir ayaana isku diyaariyay tartankan xiisaha badan, iyadoona la filayo in guulo waaweyn laga soo hoyn doono tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoona difaacanaysa degmada weyn markaasi lagu magacaabo Gubadley oo markaa tartankan qaybka oo doonaysa sanadka in guul taariikhi ah ka gaarto. Dhanka kale, xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha shiishka ayaa soo xiray tartanka horyaalka dhalinyarada loo qabtay. Tartankan oo ka mid ahaa tartamada ugu xiisaha badan ayaa sanadkani lagu qabtay magaalada Beedhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, waxaana tartankan ahaa mid aad u xiiso badan iyagoona ka soo qayb galay ciyaartooy aad u fara badan. Zakariya Yuusuf Cali ayaana ku guuleystay biladda xiddiga da'da ugu yar ugu fiicnaa tartankan oo qayb markaasi ka ahaa, waxaana uu ahaa guuleystaha sanadkan loo caleemo saaray, waana xiddigii ugu da'da yaraa tartanka ciyaarahan la qaban doono. Sidoo kale haddii aan eegno tartan kale marka laga soo tago, waxaa habeen dambe la qaban doonaa abaalmarin ay qabato Somali Football Awards, waxaana loo qabtaa dhammaan ciyaartooyda, kooxaha iyo sidoo kale qof walba oo markaasi ka tirsan bahda isboortiga dalkeena Soomaaliya qaybaha ay ka qayb qaateen, ha ahaato horumarinta iyo sidoo kale taageeridda ciyaartooyda, kooxaha iyo sidoo kale xiriirada dalka ka jira. Dhammaan ayaana lagu abaalmarin doonaa. Shakhsiyaadka ugu fiicnaa sanadkan 2024 ayaa lagu dhawaaqi doonaa yaa u tartamaya yaana u soo bixi doona. Waxaa socdo xulashada iyo sidoo kale guddi ayaa loo xil saaray, kuwaas oo ay markaasi sameyn doonaan qaabka codeynta ay u dhici doonto oo la shaacin doono dhowaan ayaana la shaacin doonaa ciyaarahaas oo si rasmi ah markaa cidda ku guuleysato aan idiin soo gudbin doonaa tartanka loo qabto sanad walba dhammaan bahda isboortiga ee dalkeena Soomaaliya.